saqdhexe habeennimadii xalay oo ku beegneed labadii iyo barkii habeennimo ayaa waxa uu dab ka kacay xaafadda nafaqada ee magaalada Boorama kaasi oo dabkaasi qasaare u geystay inay ku basbeelaan 12 guri oo aqal Soomaaliya oo ay ku noolaayeen dad danyara dabkani oo ahaa mid awood sare ku boodayay ayaa waxa gurmad degdeg la soo gaaray ciidamada debdemiska gobolka Awdal oo waqtigaasi qayla dhaantu gaadhay isla markaasina ku guuleystay inay dabar jaraan masiibada dabkaasi waxaana halkaasi ka warbixiyay qasaaraha dabkani u geystay qaar ka mid ah dadkii ku guriya beelay masiibadani iyagoo sidoo kalena ugu baaqay bulshada inay ka caawiyaan dhacdadani ayaa waxay yiraahdeen marka anagoo hurudna iyo habeen barka dabkii kacay markaan soo boodnay ardadii oo dhan oo isla qabsaday baanu aragnay waanu yaabnay ilaahay qudradiisii dadka uu ka badbaadiyay laakiin wax alla wax noo badbaadin ma jirin oo kale sidoo kale madaxa hawlgelinta ciidamada debdemiska gobolka Awdal oo isagu ka hadlayay dhacdadani iyo gurmadka baaxadda leh ay ka fidiyeen ayaa waxa uu yiri xoogan ayaa ka dhacay xaafadda Martin Cabdisalaan xaafadda Kuwait dabkaas oo Martin dad danyara oo Martin buulal ahaa ilaa Martin 12 buul in ka badan ayaa ku gubtay dabka dadku waxay noo soo sheegeen waqti dambe labadii habeenimo iyo 50 daqiiqo noo soo sheegeen waxaan ku gaarnay anaguna wax ka yar Martin 3 daqiiqo ku gaarnay hawlgalkaasi runtii aad buu balaadnaa oo wad garan kartaan meesha halka xaafadda Kuwait iyo ma xaafadda shacabka xataa markii naga go'aanbiyo halkaan u soo doonay wada kasan hawlgalkaasi runtii hawlgal aad u balaadan buu ahaa alxamdulillah akhirkiina waanu ku guuleysanay oo waanu daminay walow marta wax dhimashiyo ma jiraan hanti ku barbarsan waxa jira boolalka dadkaas ka baabay ba jira madaxa hawlgelinta ciidamada debdemiska gobolka Awdal oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay inay baahi weyn u qabaan ciidamada debdemisku gaariga booyada isla markaasina ay caqabad ku tahay gurmadka degdega ah ay u fidinayaan bulshada ayaa siibtay aafadu ayaa waxa sidoo kale ugu baaqay bulshada in laga qayb qaato sidii loogu iibin lahaa gaariga booyada ciidanka debdemiska gobolkani Awdal Sheekh Xasan Dahaye waxana uu yiri inamadaas xalay markay dabka daminayeen labadii baabuur ee meesha joogtay midna bood baa kolba u cararayo dib uu soo dhaaminayay kii kalena halkiiba ku sii sugayo sii waday waxa weeyaan debdemiskaas wuxuu baahan yahay booyado in loo sameeyo ugu yaraan hal booyad oo biyaha la daba cararta oo hadhow kolkuu marka dabku dhaco meesha maartay biyaha si degdeg ah uga qaataan baabuurtu oo afarta koon ee magaalada oo santarra magaalada looga sameeyo si kastaba ha ahaatee weli ilaa hadda lama garanayo sababta dhabta ah ee uu ka kacay dabkani habeennimadii xalay sida ay noo sheegeen ciidamada debdemiska gobolkani Awdal waa Cabsalaan Saaha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.